waxaan doonayaa inaan baaq u diro ummadaha ku dhex nool reer galbeedka caruurta iyo haysta xaasaska waxaan leeyahay xaalku xaal lagu dhex noolaan karo ma aha caruurtiina la carara oo diintiina la carara oo raasamaalkiina badbaadsada ilmo yar oo lagu afbarahayo khaniisnimo iyo lesbian iyo gays la barayaay oo yaraanta lagu afbarayaay adoo waalidana aad meesha dhex fadhidood shilmada urursanayso maxaad ilaahay ka sugaysaa maxaad ilaahay ka sugaysaa tabaaraka wa tacaala maxaa ilaahay agtiisa markaad tagto jawaabtaadu ay noqonaysaa war maxaa dhulka idinku cidhiidhiyey war maxaa dhulka idinku cidhiidhiyo idin tusay uun meesha kaliya inaad ku noolaan kartaan adduunku waa waasac dhulka ilaahay waa ballaadhiyey gaajo ku noolow iska rafaad diintaada iyo caqiidadaada iyo akhlaaqdaadu ha ku nabad gasho laakiin maalmo inaad rafaato xaal adduunyaad u joogtaa inaad gaajooto xaal adduunyaad u joogtaa in cudur kugu dhacood xanuunsato daawo weyda xaal adduunyaad u joogtaa wax ilaahay qoray wey laakiin inaad diintaada fasaadiso caruurtaadana fasaadiso waxoogaa adduunyaya dhaldhalaalkeedana aad siisato allah qoladuu ka hadla weeye tabaaraka wa tacaala aladiina tatawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim malaa'igtaa nafta ka qaadaysa iyagoo naftooda dulmiyey oo khalad iyo dembiye ku jira markaasay malaa'igtu waxay ku leedahay fiima kuntum maxaad ku sugnaydeen maxaad ahaydeen markaasay waxay kunaa mustadcafiina fi lard meelna lagaga xoog badan yahay baan joognay gaalaana haysatay dowladahoodan ku hoos noolayn shuruucdoodaana maamulaysay tabar maana haynin awood maana lahayn allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha dhulka ilaahay sooma ballaadhnayn oo meelaad u carartaan oo u hijrootaan maydaan heli karin marmarsood miyaa kuu noqonaysa waa layga xoog badnaayo miskiin baan ahaa qaxooti baan ahaa ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala xujo ku heli maysid caruurtaada iyo diintaada la carar oo meeshan meel dhaanta ugala carar oo way ka sii dari kuwan ilaahay uu ku keeno wuxuu ugu talagalaye xaaladda intaad qiimaysaan naftiina la badbaada diintiina la badbaada caruurtiina la badbaadiya